walaal waxa weeyaan ninka maayirka Gabiley anu Gabiley baan inta yaan degan oo jaano ka shaqeeya maayirka anu reebo jaalisa baan ahay maayir ka wanaagsan wali laga helay gobolkan Gabiley ma jiro baa loo dooranaya anigu dib baan loo dooranaya ninka baan waa niga magaalada Gabiley xishaashka ka wariyay ee maanta xabad ay lagu arkeen oo xabad riyaal lagu arkeen ee wadooyinka ka bixiyay dadii reebo isku dooranaya anaga xubin ninkii anaga wax loo qabanayaan dooranayna inankaasi waa lagu celinaa foodka وجعلنا إلهي وحن كبرينا إنه لما كيلومتر ونص سمينا كاسي إن كان محمد ونمو علينا إلا قبل كعاصمة الوقاري دونا halkan waa la gacsiyeedkii wajaale waxa markaasi halkan imiga soo gaaray waxtarkiisii ninkii waxtarkiisu aad u badnaa ee maayarkii Gabiley halkan waxtarkiisii soo gaaray Maxamed Amiin marka waxa weeyaan qofkii horta kulli dadka wax u qabanaya bulshada ayuunba dadka wax u ah qabiilnimo iyo hebelnimo iyo dad jeclaysi horta waxba sheegi mayso marka Maxamed Amiin waa nin mutaystay in loogu celiyo mar iyo laba iyo saddexba waa nin mutaystay weeyi in maayarkaasi loogu celiyo waa nin mutaystay weeyi waxa weey waxba reernimo sheegi mayso waan ugu celinaa Maxamed Amiin hadii Allah ay raawaan ugu celinaa gobolka Gabiley maayarka haysato maayarka fiican muu soo marin mana soo marayaan rajaynaya waxa weeyaan nin aad iyo aad u wanaagsan wallahi ninka inaynu dooranno oo mar labaad iyo mar saddexaad ba dooranno inagoo qabiil iyo cid iyo dhinacna aanu leexanayn oo qabiilnimada iska dhaafno qofka dalka iyo dadka iyo diintaba anfacaya ayaa aad iyo aad u wanaagsan waxaan aad iyo aad u taageersanahay oo wax qabadkiisa aad ula dhacnay maayirka degmada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi waxaan leenahay maayirka mar labaad iyo mar saddexaad ha loogu celiyo mar saddexaad iyo mar labaad waan ku dooranaa maayir aad iyo aad baan u taageersanahay soo noqoshada maayirka gobolka Gabiley waxa weeye waa horumar waa Gabiley iyo degmooyinkayga oo horumar balaaran hela mudane gudoomiye waa lagu tijaabiyay intii laga filayay labilaabkeed ayaad qabatay hore u soco mudane gudoomiye dadka gobolka Gabiley iyo degmooyinkiisa ku nool ee aragtida xorta ah leh iyo intii jecel gobolka Gabiley iyo deegaankiisa horumarkiisa waa garabkaaga qabiina ninkayga dhameystira soo noqoshada maayir Amiin waxa weeye waa dhiirigelinta jiilka soo kacaya maayir Amiin oo soo noqdaa waxa weeye waa Gabiley iyo degmooyinkiisa oo hela horumar intan hadda uu qabtay ka sii balaaran waxaan ku sugannahay saaka degmada Togwa Jaale ninka la Maxamed Amiin dhalinyarada ee Gabiley ka ah maayirka runtii ninkaas waa nin ku suntan wax qabad iyo horumar maayiradu runtii imika waxay fadhiyeen 9 sanadood bay fadhiyeen Maxamed Amiin uu ku suntan yahay waxa soo raacay ninka la Cabdishakuur Cidin ee jooga Berbera labada nin wax qabadkoodu reer Soomaaliland oo dhan ba ka marxaad kacaya min daraf ilaa daraf runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa musharaxnimadoodana waan soo dhaweynaynaa inay mar labaad kursiga ku soo noqdaan waan soo dhaweynaynaa nin kasta oo wax qabtay waxa weeye waan soo dhaweynaynaa inuu kursiga ku soo noqdo Maxamed Amiin Togwa Jaale wax ka qabtay degmadiisa qodob kumeega degmada Arabsiyo wax ka qabtay oo laamig dhigay Togwa Jaale u dhigay runtii waa nin ku dayasho mudan waa rol wadal way soo dhaweynaynaa nin kasta wax qabtayna waa soo dhaweynaynaa Maxamed Amiin Cumar Cabdi maayirka degmada runtii waxa weeye maayir la tijaabiyay oo aynu horumarkiisa aragnay marka waxa weeye guud ahaanba degmada iyo Gabiley waxay og tahay in wax qabadkiisa waa laga dheregsan yahay bilicdii degmada wax uu ka bedelay oo Jaale wax waa ka qabtay Gabiley oo aynu aragno wax uu ka qabtay guud ahaanba gobolka marka runtii horumarkiisa iyo waxtarkiisa waa la tijaabiyay marka waxa leeyahay Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo maayir in wax qabadkiisa aragnay aynu soo tijaabinay isla markaana aan maanta leenahay mar labaad uu mudan yahay in loo doorto inuu hogaamiyo degmada oo golaha ku soo biiro oo golaha hogaamiyo marka uu soo dhaweynayaa musharaxnimadiisa Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo wax horana qabtay wax dambana qaban doona
aad baynu soo dhaweynaynaa howlo badanna magaalada Togwa Jaale ka qabtay laamiye fara badan ka sameeyay wax qabad wanaagsan oo muuqda ayaa lagu xasuusan doonaa wixii hore u qabtay wax wanaagsan oo ka dambeeyay qabtay aad baynu soo dhaweynaynaa musharaxa Hiil iyo Hoogan laag taagan Audio Jungle.